ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي سعود وهذا ما أنت موقعكين وحنكسو قادم دونا وصعب هدي أدقف أصحاب هذا القرآن ودرته كدي منه خاقل دمه قرالكي dadka inta badan waxay sameeyaan in ay qoraalkii dhilid gareeyaan marka maanta xal baynu helay waxaynu haddii aad qoraal qorto oo aad qof ku dirto qoraalkiina kaa qaldamo si aanad u dhilid garaynin waxaan sameyn doonaa inaad edit ku samayso qoraalkii kaa qaldamayna aad saxdo waxaa ku soo dhawaada dhacdooyinka qaar marka u horeysa waxaad soo furanaysaa whatsapp-kaaga whatsapp-ka saas kala soo furatay waxaan ku tijaabinaynaa qoraal tusaale ahaan qoraal noocaas oo kale ah baad iska qoraysaa qoraal noocaas oo kale markaa saas oo kale u qorto kadibna adigu saddexda qoraal mid ka mid ah ayaa tusaale ahaan kaa qaldamay saas oo kale farta u saaraysaa marka saas oo kale aad u calaamadiso waxaad dooranaysaa saddexda dhibcood ee ku yaala midigta kadibna waxaad sii dooranaysaa halka ay ku taalo edit kadibna qoraalkaaga dib baad u saxaysaa kadibna waad u diraysaa saas oo kale markaad u dirto qoraalkii aynu saxaynay halkii uu ku jiray buu ku jirayaa qoraal baa ka dambeeya qoraalna uu ka horreeyey kama sii dambeynaya qoraalkii dambe halkii uu yaalay ayuu ku hagaajismayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin asxaabtay fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar like-na noo saar asxaabtiinii hore u joogtayna fadlan like-ta ha ka ilaawina aad iyo aad baad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.